kulanti wanaagsan khadka telefoonka waxaa si toosa magaalada Hargeysa ugaga jira mid ka mid ah mas'uuliyiinta xukuumadda wada jiriya waxqabad agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda agaasime Maxamed Cabdiraxmaan ayaa khadka ku jira agaasime waxaad ka mid tahay mas'uuliyiinta wasaaradoodu guuleysatay hambaliyo marka hore adiga iyo qaranka Soomaaliland maxamed bishaara dhamaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan ba guuleystay wali guuleysanay adiga iyo wasiirkaaga ee wasaaradda arrimaha dibadda wasiir Cabdiraxmaan Bakaal basi gaaran idinku hambalyeelina madaxweynuhu wuu baxay wafdi fara badan baa raacay wadanka Israa'iil buu joogaa safarkaas maxaad xog naga siin kartaa wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Cabdiraxmaan Abdullaahi Ciiro oo hogaaminayo oo runtii ku soo beegmaya waqti aad ugu muhiim ah qarannimada Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa weeye waa wafdi aad u muhiim ah waa marxalad cusub oo Soomaaliland gashay wuxuu hogaaminaya wafdi aad u ballaaran oo ka mid yihiin wasiirka arrimaha dibadda wasiirka madaxtooyada wasiirka tamarta wasiirka biyaha taliyaha ciidanka qaranka runtii waa la taliyaha madaxweynaha maaragtay arrimaha dibadda maaragtay idmana Israa'iil joogay marka runtii waa wafdi aad u culus waxaa kaloo oo state visit oo markii ugu horeysay madaxweyne Jamhuuriyadda Soomaaliland dunida meesha dhanba ka dhacday ugu horeysay marka runtii waxaan arkayna waa taariikh qormaysa oo runtii dhammaanteen ay marxalad ka tahay nasiibna inuu helnay qarankeenii iyo himiladii inta badan diidayna marka runtii fariin weyn buu maanta ee safarka madaxweyne Cabdiraxmaan Ciiro uu hogaaminayay ay dirtay dowladuna runtii maanta wixii ka dambeeya Soomaaliland si ka duwan sidii hore ula macaamilo doonta sababtoo ah Soomaaliland way haysataa dhammaan duruufihii ay u baahneed oo dhan iyo shuruudihii way ka soo baxday hase yeeshee fursadan maanta oo kale hore Soomaaliland bay marka runtii wafdi culus weeye waa state visit shan insha Allah joogi doonaan intaana waxay ka shaqeyn doonaan cilaaqaadka Soomaaliland iyo dowladda cusub ee Soomaaliland aqoonsatay state of Israel inay maaragtay xiriir ballaaran yeeshaan oo dhinacyo badan xagga dhaqaalaha amniga biyaha social dhammaan everything ay u baahnayo agaasime in Soomaaliland ay heshiis amni la gasho ama ay cilaaqaad la yeelato dawlad awoodda inta leeg dunida kule maxay uga dhigan tahay Soomaaliland maxay se fariin uga tahay cadawga fariin noocay cadawga Jamhuuriyadda Soomaaliland u diraysa waxay Soomaaliland diplomatic relationship ay sameynaysaa heshiisyo waaweyn bay saxiixayna dabcan amnigu qayb ka mid noqon doona runtii Soomaaliland waxay ka mid noqon doontaa maaragtay dalalka amniga gobolka qayb weyn wax laga weydiiyo dadka runtii jecel Soomaaliland inaanay meel fiican gaarin ama inuu cadowga noqonay maaragtay aan waxba hayn runtii wad arkaysay oo madaxweynuhu maaldeedu waa kila dalaalbaan soo kaxaysanna marka runtii Soomaaliland iyadu waxa weeye iskaashi bay dalal badan la galaysaa amniga gobolkana runtii halkii ay ka ciyaar jirtay meel ka weyn bay ka ciyaar doontaa waana runtii qaran tisqaaday midabada loo aasay maantana runtii aan isleeyahay amniga gobolka badda cas iyo dhammaan geeska Afrikaba Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay noqonaysaa xoog weyn oo lagu xisaabtamay noqonaysaa insha Allah taala insha Allah agaasime Maxamed Cabdiraxmaan dad wadamo fara badan oo cadow ku ah Soomaaliland oo wadanka guuldareystay Soomaaliya ay kamid tahay iyo dalal kalaba waxa ay ku doodaan in cilaaqaadka Israa'iil la yeelateen uu dhibaato ku yahay Soomaaliland maxaad eedaa iskaga difaacaysaa runtii saas sheegtayba waa wadanka guuldareystay Soomaaliya oo runtii waraaqo la meereysanaya institutionada kala duwan oo dabeetana warqada wax ka badan oo horta ay Soomaaliland leedahay ma jirto Soomaalilandna waa dowlad 35 sano gobolkan amnigiisa dimuqraadiyadiisa xasiloonidiisa dhaqaalihiisa door weyn ku leedahay iskaashi la lahayd dalalka jaarkoodna runtii wad kana cilaaqaadka la leedahay from the UAE to Ethiopia to Kenya iyo wixii wadamo kale oo marka runtii inay wax ku soo kordhiso mooyaane argixisada la dagaalankeedii xagjirnimada wax ka qabashadeedii burcadbadeeda maaragtay la dagaalankoodii xasilinta amniga badaha Soomaaliland runtii iskaashiga amniga Israa'iil la yeelanaysa waa mid soo kordhinayo shaqadii Soomaaliland warna laba dowladood oo runtii cilaaqaad yeeshay mana aha wax ay runtii aynu fursad siin karno maaragtay warqadaha marmar shiraarada ah ee soo dhaca dowladda guuldareysatay ee Soomaaliya marmar ay karabsato dalal kale xaqiiqdiisu waxa weeye dalka saabab maslaxadiisa iyo dantiisa isaga garanay dalal badan oo runtii kuwaas ka mid ah cilaaqaad dhow la leeyihiin cilaaqaad amni la leeyihiin cilaaqaad iskaashi la leeyihiin Israa'iil la leeyihiin marka Turkiga baa kamid ah Masar baa kamid ah Sacuudi baa kamid ah therefore runtii maaragtay Soomaaliland wax ka duwan wixii inta kale sameyn jirtay may sameyn absolutely adad baasan tahay
shacabku maanta guul bay joogaan oo shacabka reer somalilan oo dham indhahoodii waxa uu hayaa iyaga iyo caalamkaba safarka madaxweynaha wasaaradaadana sidaan sheegay dadaalo fara badan bay qabatay had iyo jeer dadku waxay isweydiiyaan maxaa xiga maxaa soo socda sataa maanta kuma weydiinaya waxaan doonayaa fariintaad u dirayso shacabka somalilan agaasime runtii shacabka somalilan iyo dowladoodu way wada socdaan hal ajendayna wada leenahay waxa weeye kow inaan yoolkeeni gaarno kusii qaramada midoobay ku fadhiisano dalalka ay runtii marba dalkii aynu saaf karanaa boosina ugu dhawaaqo dalka iyo dadka iyo shacabka jamhuuriyadda somalilan waxaa leenahay kheyr badan fisha runtii maalmihii wacna way soo socdaan marka ugu dambeyn agaasime marka la eegayo dhanka somalilan waa tanoo wadamada ku xeeran ee cadowga ku ah waynu garanaynaa soomaaliya kow ka tahay amniga inay iskaashi kala hesho wadamada sidaa u horumaray wadan nuclear haysta wadan qaramada midoobay awood ku leh wadan caalamka awood ku leh maxaad ku cabiri kartaa waa game changer baan oran karnaa kow dowladda guuldarraysiin soomaaliya inaga dhibaatay naguma hayso markay nabdaama khatar uma arki karayn sababtoo waxaad arkaysa iyadoo xamar ciidankooda intay beelabeela u kala baxeen runtii ay xaafadihii xamar isku dhex yeeriyaan waxaana وري مام قولي دري سبيني لما أنتوا حبتوا كل عايز دولة السقف فشلت إلى خاطر ما جرته لكن ده جاي سومن لو حيصير سأود أيضا وحيصير سأود خبرات وحيصير سأدولة ديارة نيرتي دولة ديارة تجبر السومن ودولة دولة السومن سلاي إذا حد أقدر يعني أمني كفريق قطر ما دروتي وحصلي سومن المر كهرباء استراتيجي لوكيشن وكتالين دولة نمدة مدة runtii horumar badan soo sameynaysa haddana waxaynu iskaashi yeelana dowladda runtii isleenahay runtii wax badan kala faa'iideysan marka waa game changer hadda soo koobola aad baad u mahadsantahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan waa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda dhowaan dib loo aqoonsaday mar kale ee somalilan telefishinka qaranka ayuu u waramayey hambalyadana guud ahaanba shacabka somalilan ayuu gaarsiiyey waqtigiisa qaaliga mas-uulka qaran waan uga mahad celinaynaa aad baad u mahadsantihiin cusmaan maxamuud jaamac qays injineerka guud ee telefishinka qaranka qaaradda yurub iyo anigoo bashaaro bandayba nabadgelya ayaan idin leenahay mas-uulkana mar kale ayaanu salaamayna asalaamu calaykum